halka tani waa magaaladii Burco waa caasimadii gobolka Togdheer ee la doonayay inay horumar hiigsato caalamka lamida balse maanta inay ku soo noqoto maalin Jimca oo ay ka soo wareegtay 34 sano oo Burco lagala wareegay dawladii Siyaad Barre bay ahayn astaantan laga taago magaalada Burco gaar ahaan wadada highwayga ee xidhiidhisa gobolada galbeedka iyo sidoo kale gudaha magaalada Burco astaantani kuma fiicna indhaha dadweynaha hadda jooga waa gaari qori saaran yahay oo lagu sheegay maalin Jimca in magaalada Burco hogaaminayay waa 34 sano ka hore haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa astaanta looga taag waayay muddadii 3 jeer ahayd ee ay xilka soo mareen saddexdii mujaahid ee u kala dambeeyay xilalka madaxnimo ee ka soo tirsanaa jabhadii SNM oo ugu horeeyo Allah u naxariiste Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Allah u naxariiste Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo joogaha hadda ka degay xilka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahid Mudane Muuse Biixi Cabdi saddexdaasiba madaxweyne ay soo noqdeen astaantana Burco lagama taagin maxay maanta soo kordhinaysaa aydin kala baxo Daawud Burcaawi oo hadalka yiri arintaasi gaariga soo imaad weydiin gaarigan waxa weeyaan ururka SNM ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun Burco ma ugu tiraado waxay noqotay meel birlibaxda lagu kala jiro birlibaxda gabiyaha Soomaaliland oo dhan meel lagu kala jiro noqotay miya tan meel mid ka yeelaa tan baan mid ka yeelaa miya xasuuso hore iyo taariikho hore iyo mujaahid hebel baa ka warramaya ayaan mid ka yeelaa miya aqligu haduu dib u shaqeeyo waa noocan oo kale bal fiidiyowga ila dhameystay billahi alayk halkani waa magaalada Burco waxaa hadda saaka xafiiska jamciyadda Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Burco hortiisa laga taagay kaabad la saaray gaari kamid ah kuwii halgankii SNM ka qayb qaatay haddaba waxaa isweydiin leh iyadoo 14 sano ee u dambeeyay madaxweynayaashii soo maray jamhuuriyadda Soomaaliland ay ahaayeen madaxdii SNM sababta loo taagi waayay taaladan mujaahid Maxamuud Maxamed Balcade oo loo yaqaan Salax ayaan wax ka weydiinay waxa xilligan ku soo beegay in gaarigan waxba weydiin ana ku jawaabaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Burco ma waxay u baahan tahay gaarigan yar ee leedihiin xasuuso hore ku duugan iyo mujaahid hebel oo ka warramaya ay Burco maanta u baahan tahay miya oo waliba magaalada bartankeedii oo meel waxa weeye istiraatiiji oo waxa weeye dadku marayaan oo bartamaheedii iyo halbuuraheedii inaad birlibax noocan keentaan oo tiraada xasuuso ku duugan Burco imisay leedahay haliye imisay leedahay imisay abwaanan leedahay imisay waxa weeye dad wax laga qoro oo maanta naga hooseeya imisay leedahay dadka ma lagu xus haday dhab in ka too Burco wax u qabanaysan wariya ilaahay ya yaqaan Burco maanta uma baahna niyo birlibax uma baahne wax qabad bay u baahan tahay Burco cashuurteedii bay laadahay Burco waxay laadahay xaqeedii iyo dhan iyo xuquuqdeedii iyo dhan bay Burco laadahay eriboodkeedii baa xiran oo aan wasla hilibna ka soo degin abdow waradamay maqli garoonkeedii ina tarabun laba loo sameeyo ala kala geen wadooyinkeedii haba sheeg ganacsigeedii waxa weeye halka kiishka bariiska uu ka yahay qiimo uu ka yahay Hargeysa qiimahaas oo kale Burco kama aha meenis walaade Burco maanta tiraadeen hayjad bay noqotay waxay noqotay Burco meel birlibaxda Soomaaliland oo lagu kala iibiyo war umada ka xishooda oo umada dad ka xishoo weydaan Ilaahay casaawajaleyda abuurtay ka xishooda Burco xuquuqdeedii bay u baahan tahay xaqeedii bay u baahan tahay oo waxa weeye waxay u baahan tahay saami qaybsigeedii bay u baahan tahay oo wadooyinkeedii bay u baahan tahay erboodadeedii bay u baahan tahay oo sportskeedii bay u baahan tahay oo wax walba u baahan tahay inaanu hadalahan ugu kalifine waxaan magaalada bartankeeda ka qaaday birlibaxdan magaalada bartankeeda keenteen inta luuq dhigtaan ka yaacaniyo Ilaahay iyo umadiisa ka xishoon maysaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan anagu hadaan ka yeelay dadka bilaadanka ee jaarka aanu nahay hanagu dirine waxaan meesha ka qaaday inaad ka qaado meeshaad ka keenteen ku celiya maanta dawlad bay nahay dawlad waxaan magaalada bartankeedii oo waliba caasimo ku xigeenkii bartankeedii waxaan dhigtaa lama arkine mad waxyaabo kale noo samaysan meelo kale oo maktabadaha waaweyn inta noo samaysan ayaa maktabada dhinaceeda kala bahalkan la dhigaayo waliba inta rinjiyo wax la mariyo la yiraahdo hagaajo la yiraahdo wax xusuuso hore waa loo baahan yahay oo waxa weeye in dhalinyarta maanta soo kacaysa loo dalkan taariikhdiisa waxyaabo badan loo sheego waa muhiim kama soo horjeedo laakiin waxa ka soo horjeeda maanta Burco uma baahna xasuusan iyo waxyaabaha yar misqaala darrtina uma baahna Burco wax qabad bay u baahanta waxyaabo badan bay tabaysaa shacabkeedu tabayaan iskuuladeedu tabaysaa dawliga iyo wax walba tabayaan
marka in maadina naga hadline waxaan magaalada bartankeeda ka qaaday inaad arki kari mayne la xawla wala